kaltu waan ku salaamay waana ku soo dhaweynayaa. Istahilaad badu mahadsan tahay walaalo. Waan dhowahay. Thank you. kaltuunay haddii aad isbarto dhegeystayaasheena inta aan ku aqoonin waa tuma ayaad odhan lahayd kaltuun? Waxaan ahay Kaltuun Yuusuf Cismaan, Kaltuun Baanday. Dadkeena Soomaalida i yaqaanaan dhammaantoodba. Hargeysaan ku dhashay. Ingiriiska waxaan imid anigoo yar sanadkii 1987. Aqoontayda guud waxa weeye iskuulkii halkan baan ku dhamaystay college iyo jaamacadihiiba. Waxa aan bartay cilmiga la yidhaahdo social anthropology oo iigu jirtay development studies oo international development ah. Waxaan ahay hooyo 4 wiil leh. Sheffield baan deganay magaalada Sheffield. waxaanan imika ahay golaha deegaanka ayaan ka ahay xildhibaan magaaladeeda Sheffield. Postgraduate education kayga madasi aan sii watayna waxa weeyaan education policy and practice, markaas global education policy. Marka adigu waxaan oran karaa academic iyo siyaasi isku jira, maxaa la politician iyo academic iyo isku jira ayaan ahay. marka waka aqoonyahan siyaasiga saaran baa tahay. kaltuun haddii aan ku hakado siyaasadda waxa tar xildhibaan baan ahay, laakiin xildhibaan kaliya ma tihid, waxaa tahay xildhibaan ah gabadhii ugu horeysay ee dadka kalarka ah amba midabka leh amba madow amba Soomaaliyeed amba Afrikaanka ah ee ku soo baxday kaalintaada. dadka Soomaalida oo kaliya ma matalaysay, waxaad matalaysaa Soomaalida iyo inta diinta kula wadaagta, inta midabka kula wadaagta oo aad iyo aad u fara badan oo ballaaran. magaalooyinka waaweyn England mid kamid ah ka soo baxday oo magaalada kaliya ma haysan fahamsan gobolka dhamad ka soo baxday. arintaas ma u sharaxi kartaa dadkeena dhageysanaya adiga ku leedahay amba say ku taabatay ma sheegi kartaa? istahil walaalo, waxaan ahay xisbiga waxaan ka tirsanay la dhahdo Green Party-ga. xisbiga Green Party wadamo badan oo Europe iyo Mareykan ah, wadamo badan oo Africa buu ka jiraa, laakiin maaha xisbi qura oo the global isku xiran. laakiin xaggan UK xisbiga Green Party-ga waxaan ahay inantii qofkii u horeeyay ee Soomaaliya female ah ee dumar ah ka soo baxa magaalada Sheffield ama gobolkayga South Yorkshire la yiraahdaa. waxaan ahay Afrikaanadii u horeysay gasho siyaasad ama siyaasad kaga soo baxda. marka la loo eego waxaan ahay Afrikaanadii u horeysay muslina iyo marka dee xaggeedii loo soo wareego Soomaaliyadii u horeysay female ah Green Party ka soo baxda ayaan ahay. markii horeysay ee Soomaalida UK Green Party ka soo baxday 2016kii waxa ka soo baxay Majid 2018kiina aniga 15 sano Sheffield deganaan waxaan kamid ahaa xisbiga dadka ugu maaragtay cadcad meel la yiraahdo ee xisbiga Green Party-ga campaign-kiisa ah. marka meelo badan baan soo ayaan qofkii u horeeyay ahay runtii, taasoo siday aniga ii saameysay ay tahay in siyaasaddu ayna goorta doontaba galo. in siyaasaddu anigoo intaasoo sano joogay markaan imika galay baan ogaadayba inaan dadka Afrikaanka ah marka hore siyaasadda lagu guubaabinaynin, taasoo aan noqday guubaabo runtii dumar oo kaliya maahe macaa ragga ah. imika dhowr waxaanu haynaa dadka laga tirada badan yahay oo doonaya inay xisbiga soo galaan oo ay weliba aanay dee noqonin dad codkooda dhiibtay, noqdaan dad actually soo istaaga xildhibaana noqda. magaalada Bristol dad baa jira Greenkii ku soo oo weliba soo istaagi doona magaalooyin kalena. marka waxyaabo badan ayaan horta aan ahay dadkii hor istaagay ee yidhi soo dhaqaaq xaggan kaale kol hadday anigii arkeen iyaguna ay kusoo dhiiradeen. waan gartay. waa wax ku dayashaba fiican leh oo macnaha tusaale ahaan dhalinyarada iyo inta siyaasadda jecel iyo inta isla wadanka aad qariibka ku tihiin amba degintiin waxba kama bedeli kartaa. waxay runtii u noqonaysaa ku hirasho. dadka Soomaalida ah ee degan Ingiriiska gaar ahaan magaalada Sheffield iyo hareeraheeda sidee ayay u arkaan amba fahamkoogu waa sidee marka la eego tusaale ahaan qofku markuu siyaasadda ku soo baxo xildhibaan noqdo waxa uu shaqooyinka ugu horeeya qabanaya waxa weeyaan
saameyntii sharciga iyo saameyntiisiiba inuu ka qayb qaato oo dadkii uu macnaha matalayay u doodo oo dadkii aan codkooda la maqli jirin uu u doodo inta badan dadkeenu wadamada ay qariibka ku nahayn deganahay way iska degnaa amba caydha amba shaqada amba wixii nooga soo kordhan iska qaadana nolol tii dhaanta haddii la helo waa lagu farxaa waa laskaga noolaadaa sawir nooceeya ayaad sideedagood ku kordhisay amba dadku siday u arkaan inay kaba qayb qaadan karaan ay bedeli karaan sharciyada qaar faquuqa keena amba dhibaatada inagu ah wallahi waa su-aal aada wanaagsan istaahilay waayo maalin walba waxaan arkaa inaan macnaynayo waxyaabo badan oo islahaa dadku way already way yaqaaneen maalin dhaweyto qof gentleman oo aan aad uga mafsuudo odayaasheena aad baan u jeclahay siday sharaftii wanaagii bay weli noo wadaan dabadaha markay joogaan ayaa waxaan la fadhiistay anigoo coffee shop iska soo galay ayaan intaan la fadhiistay baan coffee soo qaatan iskala fadhiistay waayo su-aashii weydiiyey ayaa ahayd su-aal maadaama qof weyn yahay aanu fahamsanaynba haddana wadanka 30 sano joogay isagoo weynoo dee dhibaato badan lasoo kulmay buu isagu yimid waxaa simply fahansiinayay counselorku wuxuu qabto qofka xildhibaankii wuxuu qabto iyo codkaaga inaanad iska uun fadhiina codkaaga inaad dhiibato in aad wax ka bedeli kartid sharciyo dejinta in aad kala fadhiga iska iman kartid oo qof kasta iska soo geli karo waayo meel baa jirta ay dadka public fadhiistaan in waxa la kala faa'iidayo waxa la kala samaynayo iyo waxyaabaha go'aan lagu gaarayo in ay dadku u bislaadaan waxaan u malaynayaa howlo badan baa noo yaala waxaa jira xildhibaano fara badan oo Soomaali u dhashay ayaa imka soo kordhaya Ingiriiska election kasta qaar baa ku soo kordha waxaan u malaynayaa in ay tahay in Soomaalida si fiican loo fahansiiyo sharcigu inaanu siyaasadda aanay adiga dusha kaaga imanay adiguna aad ku jirto oo aad ka barato waxyaabo badan marmar baa waxa dhacaysa in qofku uu wax balaad u qabato oo uu yiraahdo xildhibaan baan u baahanay xildhibaan baan u baahnayn marmarna waxa jirto qofkii inaanu fahansanaynba inaad adigoo xildhibaana aad qofka u raaci kartid waxyaabo badan aad ka caawin kartid oo sharciyo badan aad su'aal adigu weydiin kartid adigoo iyaga codkooda ku hadlaya marka way wanaagsantahay inaynu walahi waxaan u baahanayba malaa inaanu training iyo dadka iyaga u furno organisationada Soomaalida inaan dhahno siyaasadda soo gaarsiiya annaguna aan idin nimaadno aan idin la caawino waa fikraadii wanaagsan waxaan aaminsanahay dadka waaweyn khaasatan inaanay fahamsanayn qofka counselorka amba xildhibaanka ah ee iyaga matalaya soo baxay wuxuu u qaban karo haddii aad soo koobto 4 wax oo qofka counselorka uu qaban karo dadka matalaya amba ay u doonan karaan amba ay weydiin karaan amba ay fikirkooda la wadaagi karaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah 4 wax mid waxa weeye waxa la yiraahdo policy development-ka in ay haddaad fadhiisato waxaan fadhiistaa anigu policy development group aan fadhiistaa committeegaas in ay ii sheegi karaan waxyaabaha ku saabsan housingka ee dhibaatada ka haysato in ay ii sheegi karaan waxyaabaha ku saabsan safetyga ama policingka in ay ii sheegi karaan waxyaabaha ku saabsan fireka oo kale oo safety fireka oo kale not just gurigayna wax ku yaalaan marka waxyaabo badan oo ay policygu waa number 1 sidii loo fahansiin lahaayna policyga codkooda dhiibtaana ay aad iyo aad u tahay muhiim ta kale ay xildhibaan ula iman karaan waxa weeyaan hagi goor dadka madowga waxa loo haystaa inay foodaan oo aanay waxba su'aal weydiinin in ay mar walba su'aal weydiiyaan xildhibaanadu waa inay ku dadaalaan inay dadka ay matalayaan ay cod yeeshaan oo mar walba aad encourage garayso ku guubaabiso inay codkooda dhiibtaan talabaad waxa weeyaan inay horta ku ogaadaan inaad tahay xildhibaankay dhamaa ee iyaga matalayay taasa horta iyaduna ah muhiim xildhibaanada marka waxay qabtaan waxa kamid ah markan ay hadlayaan shaarkii bay xiran yihiin dadkii ay u hadlayeen miitinadaan ka qayb galayno codkoodii baan ku hadlaynaa inaan mar walba xasuusnaano iyo in aad ku noqoto dadkii oo iyadana marka hagi goor waxa weeyaan communication oo de wada hadalku clear ahaado maxaa dhahday awareness inuu maxaa dhahday qofku ogaado qofku wuxuu yahay in ay ka mid noqdaan oo ay codkooda dhiibtaan marka waan soo koobaya baan islaakiin way farabateen bay aad bay wanaagsan tahay
macnaha warbixin fara badan bay ka helayaan, warbixin badan oo aan anigu aaminsanay dadkeenu inaanay ka warhayn. aniguna imaka intaas sheegaysa in badan oo dhan ka warhayn baa jirtaba inuu counselorku qabto aanan ogeyn markii hore. waana muhiim oo wadamada martida ku nahan deganahay guryaha iyo boolisku waa laba shay oo dadkeena taabta iyo dhammaan dadka midabka amba madowga amba macnaha aan cadaanka ahayn, waa laba shay oo aad u taabta. xarajeynaya intayna dhegeysanaysaa inay ka faa'iidaystaan, kula soo xiriiri doonaan amba inta kale aday kula midkii matasha. haddii aan siyaasadda ka baxno, halkan aan kaga yara baxno, waxaa tahay hooyo, waxaa tahay xaas, waxaa tahay xildhibaan, waxaa tahay qof arrimaha bulshada ka shaqeeya oo qabta arrimo badan oo tadawacnimo ah, voluntary ah, oo isku xilqaaman sidii aad waqtiga qorsheyn lahayd oo aad iskugu dheelitiri lahayd. waa arrin adag inaad waqtigaaga qorsheyso adiga waxaasoo dhan qabanaya. sideed waqtigaaga u qorsheysaa? anigu istaayl ahaan dadka ku armayar garayaan ka mid ahay ku hiigsada waxyaabahan isweydiiyeen ka helaanay ka mid tahay. sideed arrimahaasoo dhanta bulshada, shaqsiga, faamilka, hooyanimada intaba iskugu dheelitirtaa oy kaltuun gacanta ugu haysaa? sida waqtigaaga u qorsheysaa kaltuun? horta waxaan hagga goor idhaahdaa marka waxaa la yidhi every great man there's a greater woman. so for me waa dhinaca kale. waxaanu nahay family aada isu caawiya anigii odaygu. odaygu waxa weeyaan shaqadiisa waa flexible because isagaa businesskiisa isagaa leh, waa waxa weeye freelancer, isagaa shaqada leh. marka labadayada calendar hagga goor waa isbarbar yaalaan si aan u ogaado waqtigaan shaqaynayo, waqtigaan wax qabanayo, miitinadayda, iyo isaguna u ogaado waqtigu contract leeyahay, waqtigu baxayo, waqtigu training soo sameynayo iyo waxyaaba caynkaas. marka horta waxay labadayadiiba maadaama oo aanu shaqaynayno, laakiin flexibilitygii waxay ka imanaysaa horta xagga Yunis, xagga odayga ka imanaysaa. ta kalena waxaan dhex deganahay runta marka la sheego aan aad iyo aad aan rabo inaan u sheego dadka aan aadna ugu faraxsanahay oo aan 15 sanaba dhex deganaa xaafad Soomaaliya. 15 sano halkaa deganaa, 3 caruur baan ku dhalay. anigoo uur laban jaamacad masterkayga ku dhameeyey. intaasba waxaan ogahay in hooyo kasto xaafadda degan ay caawin karto, aniguna waan caawin karo. marka dadkaaga lagama fogaado. horta number 1 waa inaad qiimaysaa, waa inay ku qiimeeyaan, waana inaydin maaragta xagga diiniyankiina in dejaarku waa wax lagama maarmaana. waxaa kaloo jira in waqtiyada aan u baahanahay inaan council meeting iyo waxa ku jiro inuu councilku childcare buu bixiyaa caruurta markaa qofkii ku hayay iyaga ka fargaraynaya qofta register oo safeguarding-ka ku jira. istaahilay wax badan baan ku soo jiray iyadoo hawlo kala hayaan ciyaalna hayaan jaamacaddana ku jiray. weliba imika anigoo counselor waxaan bilaabayaa October PhD ayaan bilaabayaa oo 4 sano soconaysa. marka taana igu darsheekada waxa weeyaan waa kaltuun, waxa weeyaan yani waxaan ku dhahdo markaan ka horan kugu sheegay yani waxa qof aan admire gareeyo hadafkaaga, motivationkaaga iyo awoodaadaba waan kugu hambalyeynaya. waxaan rajeynayaa sida aniga aad igu tahay role modelka inaad hablo badan iyo gabdho badan iyo dumar badan iyo hooyooyin badan baad ugu tahay. mar labaad mar saddexaad hambalyo. marka ana su-aasha sii tixraacaya, yani kaltuun maxaa motivationka siiya, maxaa kaltuun dhiirigeliya marka laga yimaado support systemka aad haysato oo ah qoyska iyo isku xidhnaantiisa? maxaa ku dhiirigeliya amba hadafkaaga markaad amba haddii caqabad ka hor timaado amba wax ku niyad jabiya ka hor yimaadaan amba hawsha kugu badato, maxaa ku riixa kaltuun siiya shidaalka? horta walaalo mar walba alxamdulilah rabbil caalamiin caafimaadku waa wax wanaagsan. markan yaraayan wadanka imid laba qof oo dumar ah oo familygayga ah oo labadaba Ilaahay naxariisto, hooyada iyo walaashay, ayaa midna isoo dirtay midna lay keenay. gabadhii inantii aan la soo koray ee walaashayda Ilaahay naxariistay waxay ahayd dadka caawiya. waxaana ay tiri wax ku xidhayaa ma jiro haddaad Ilaahayna aaminto, naftaadana aaminto. marka self trust is fiican tahay. ta kalena waxa weeye waxaan arkaa haggiyo goor waxaan arkaa hooyo inama yahab 2 jaamacada ka soo saartay
oo ama single mother ah oo dee keligeed noolayd ama ay kala maqnaayeen odayga oo ay waddan kale ku kala maqnaayeen aniga oo leh sheekada hawshaa ma qaban karayo markaan arko hooyo ka lahday oo inta iyadu ilmihii ma dhexmoonayo iyuuna dhexmoonin 100 wax u xidhay oo intaasoo bas raacday oo iskuulkii mar kusii cararaysa marna kasoo cararaysa haddana cuntadii karinaysa haddana ka samaynaysa had iyo goorna aad iyo aad iyo aad baan ugu farxaa inaan arko mid graduationkii ilmaheedii taagan waa kii shalayta ay la silcaysay marka horta waxyaabaha had iyo goor siiya gubaabada gaarka ah waxa weeyaan sida adag ee ay dumarka qurbaha yimid ay ula qabsadeen waxyaabo badan oo carqalado badan ku keenayay ay uga dulboodeen ay si adag oo hard working ay noqdeen dumar ah anigu waxaan sheegtaa ma jiro markaan arko gabadha jaarkayga inta qofay jaamacad ka soo saartay waa wax wanaagsan qofku intuu bulshada u fiirsado inuu asaga oo qof mahadnaqaya oo nimcadiisa ku mahadnaqaya qofkay ka maqanta oo eego dabeetana uu dhiirigelin ka qaato waxay sheegaysaa karakterka wanaagsan ee qofka waan gartay maanta guulo fara badan baad gaadhaysaan hore u soo sheegnay waxyaabo badan baad qabatood ku talaabsatay haddii maanta ahaan lahayd ninkii ugu horreysay dugsiga sare ka baxday ee jaamacadda ka fikiraysay maxaad qaadataa maxaad ku qalin jebisaa iyo wixii aad baratay iyo qaabkii aad noloshaada u qorshaysay marka qadarka ilaahay laga yimaado maxaad ka bedeli lahayd maxaad ku dari lahayd maxaad haddaad maanta lagu siiyay aad dib u qori lahayd chanska lagu siiyay maxaad dib u qori lahayd waxaan sanad baa waxaan deganaa college Oxford ku yaalo oo aan kasoo bartay sociology haddii maalintaa imika dib laygu soo celiyo choicekayga wuxuu ahaa inaan ama qaato criminology ama anthropology haddaan markii qaadan lahaa criminology waxyaabo badan oo ay FGM ka mid tahay oo imika boolisiyo qalada la geliyey ayaan horta dhexgeli lahaaba ilad taasina de kolle different direction kale ay geyn lahayd iyo meelo kale waxa kaliya wax ka bedeli lahaa runtii haddii aan maanta maalintii aan secondaryga aan ka soo baxay toos umaan gelin maxaa dhahday jaamacad toos umaan gelin waxaan wax ka bedeli lahaa qofkii u horreeyey ee career advisorka qolada maaragtay dadka ka caawiya maxaa dhahday halkay gaari doonaan waxay baran doonaan wuxuu ahaa qof nin wuxuu ahaa very racist ah oo dadka midabta koorka sameeya ah erayadu igu yidhina waxaa ka mid ahaa people like you don't need skills hadhowta social care worker baad noqonaysaa waxaan bedeli lahaa haddaan waanan yaraa taasoo kale waxaan ka bedeli lahaa inaan qofkaasoo kale challenge garayn lahaa inaan tusi lahaa inaan kasoo baxay 2 sano kadib baan kusoo noqday isagoo kursigii uu fadhiyey maalintaas igu lahaa fadhiya anigoo sita college certificatekeygii second yearka jaamacadda taasoo kale waxaan ka bedeli lahaa inaan shaqada challenge gareeyo oo caruur badan oo madow oo Soomaaliya u badantay ayuu sidoo aniga ila hadlay marka waxyaabo badan baan soo maray oo racism ku saabsan oo runtii aan imika brave ahay maadaama aan siyaasi ahay ama aan hooyo ahay oo markaa aan yaraa aanan challenge gareyn jirin ama aan hor istaagi jirin taasaan ka bedeli markaan ardayda ahaa inaan codkan imakaan leeyahay lahaado waa sheeko xiiso badan khaasatan waxay xiiso badan u leedahay dhalinyarada qurbaha joogta ninkii loogu talagalay inuu kugula taliyo suuqa shaqada iyo waxyaabaha baranayso ayaa kuu sheegay inaanad waxba baranin waayo dadka adigoo kale iyo inay dadka kale u shaqeeyaan laakiin 2 sano kadib aad kusoo noqotaa adoo jaamacad ka soo baxay waxaan aaminsanahay inaad 10 u dhigtayba already sababtoo ah uu ku joojiyey waad dhaqaaqday jaamacadii ba soo qaadatay waad ku soo noqotay in badan oo ku dhageysanaysa oo halkaagii taagan oo laga yaabo inay jabsan yihiin baa ku dhaqaaqi doonta oo ay u noqonaysaa niyad dhisid guusha marka laga hadlayo qofkaas uu guuleysta amba waa qof successful aan ilaahno amba guul marka la dadkeenu waxa laga yaabaa inay ay qofku naxo u yiraahdo mayane anigu soo ma garanaysa uu guushi meel fog ka eego qofku oo isku arkin inuu guuleystay laakiin aan tusaalahan waxaan aaminsanaystaa ilahan haddaan maanta aan intaan qadadii kariyay quraacdii kariyay cashadii kariyay jaamacadda casharadeedii akhriyay haddana shaqo tagay haddana gurigii caruurtii hawshoodii qabtay
dabeetana aan waqtigayga dhowr naftayda aan waqti dhowr saacadood u helay maalintaas inaan guuleystay aan macnaha successful baan dareemaya maanta beri hala gaaro markaas hadduu qof idhaa style ka waran maanta ma guuleysata haa maanta aad iyo aad baan u guuleystay ayaan leeyahay guushu guul markaan idhaahdo maxaa maskaxdaada kusoo dhacaa definitionka successka ama guusha ee kaltuun shaqsi ahaan u taqaana waa maxay horta walaal sida imika aad adigu sheegtay maalin walba taaska ama de waxaynu qabanaa haddaynu dhammaynay haddaynan dhammayninba beginningkaad soo bilowdaba horta guushaada kasoo bilaabmaysa marka xitaa waxaa jira wax aad joojisayba ood qaban kari weyday ama awood u weyday taas maadaamaad kuba dhiiratay inaad bilowdo guushu maaha endinka ee guushu waxa weeyaan inaad horta dhiiranaantaad kuba soo dhiiratay inaad samayso waa guul iyada lafteedu dadka waxaan hage goor waxaan la shaqeeyaa dhalinyaro ama dhibaataysan ama aan dhibaataysanayn oo jaamacadii ku jiro cajiiba hage goor waxaan jecelahay inaanan kuwa carqaladaha xumi ay soo gaadheen ma dhibaatooyinka badani soo gaadheen ama youth violenceka ku jira ama other issues ku jira kuwa uma arkay inay guul daraysteen hage goor waxaan jecelahay inaan eego wixii siday u arkaan iyagu waxyaabaha ka maqan u raadin karo xildhibaan ahaan qaar ba waxay dhahdeen waxba maanaan qabsanin waxaan soo xasuusiyey inay iskuul tegi jireen sababta iskuulkay tegi jireen ay u kala hayeen ilaa maalintii laga eriyey ilaa imikadan horta guulo badan ay ku jiraan baa jira waxay u baahan yihiin in leg up wax la yidhaha in la yaro caawiyo dadkeenu hagee goor qofka maaragtay meel sare gaadha iyo qofka kale isku si uma arkaan nin homelessan maalin dhawita la sheekaysanayay dhibaatooyinka soo gaadhay waxa ka daran lacagta yaree uu meelaha dadku siiyaan gabadh kale oo xanuunsan soo curyaamada oo homeless ah ayuu iyadana siiyaa waxaan u qaadan waayay waa hagii goor qofkiina hoos loo eegayo maaragta ayaa iyagii is caawinaya marka guulihiiba walaalo kala wada nooca laakiin realitygu waxay tahay struggleku marka waxaad struggle ku jirto ama dhibaato ku jirto dadku xagga kale tanalka koonihiisa kale eegaan in qofka halkaa wadada soo tallaabo laakiin bilowgeeda iyo dhexdeeda iyo xitaa ka fakarkeedu waa guulahay ka mid tahay marka waxaan u arkaa guusha qofka horta dhiiranaantiisa qofku wuxuu qabanayo hagii goorna way wanaagsantay dadka in la xusuusiyo oo waxaa jira dad aanay clear u ahayn guushu waxay tahay aan arkaynin kuwaasna waxa wanaagsan in la yidhaahdo guusha waxaad ku gaadhaysaa waabad gaadhay intii kale haddad kaa iyo kaa ka ku darno oon weliba kaana kaa caawino ama kaana hebel kaa caawiyo adigu markaasaad guul u arkaysa annagu waxaan u aragnaa inaad guushii ku dhex jirto marka encouragementka maaragtay dadka la gubaabinayo ayaa hagii goor guusha dadka u keenta waxaan u malaynaya dad badan oo guulaystay oo aan isu arkaynin inay guulaysteen baa jira dad qof u turjunta maanta adoo dariiq maraya guul baad gaadhay because dee wax sadaqaa baad bixisay laakiin adigana naftaadii wax wanaagsan baad bixisay qof baad ka farxisay life baad bedeshay marka waxay badan aynaan tirsanin nationka soomaalidu meel kastay joogaan waa dad very kind ah oo is caawiya guulo badanna ka gaadho maalintii laakiin waanay tirsanaynin isbeeri kula hayn saasay la tahay waxaan guusha dhaqankeenu wuu liidaa macnaha guusha tusaale ahaan waxa amba qof caan amba magac yeeshay amba la wada yaqaano magaalo taqaano qofkaasa inta badan aan u aragnaa guul marka qayaxaada guusha ee dhaqankeenu siya ayaa ah mid adag oon la wada gaari karin amba khaldan ba aniga fikirkayga oo dad badan oo guulaystay baa jira oo yacni guushu ha yaraata laakiin iyaga noloshoodii marka la eego wax weyn bay qabteen laakiin weli wax laga yaabo inuu fakhri yahay laakiin guusha uu gaadhay aan laga sheekeyn karin sanadkii u dambeysay hase yeeshee aanay bulshadii u muuqanin macnaa guushi maadaama aanay muuqan oonay dhaldhalaal fara badan lahayn in bulshadeena guul kama dhexa halaka xarajaynaya inay jiilasha soo socda ay guusha sida saxda ah ay tahay inuu barano wax kastoo isku daydood gaadhay inay guul tahay sariirta inaad ka kacdo isdabada iska riixda iskuulkaaga tagta inay guul tahay ambaad wadada guushaba hayso guusha markaan ka hadlayno haddaan sii raacno waxaa jira jaamacadaha iyo iskuulladu way ku badan yihiin wadankeena gaar ahaan Hargeysa oo ah meesha anigu dugsiga hoose dhexe jaamacadan kaga soo baxaan ku bartay waxaan aaminsan inay waxbarasho wanaagsan oo qurux badan tahay oo qofku aqoon barto
laakiin shaqo la-aanta faraha badan ee jirta waxyaabo badan baa keeno siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. laakiin qodobada keena waxaan aaminsanay inay kamid yihiin ardayga doonaya inuu medicine barto, in la yidhaa business baraanbo, engineering baraanbo, waxyaabaha kale imika soo baxay. ama isagoo doonaya inuu business barto la yidhaa waa dhakhtarka lacag badan ku helaysaayo baro. qofkii waxaanu doonahayn markuu barto 5 sano 6 sano markuu soo baxo wuxuu soo baxaya isagii iyo ma garanaysa aan motivated ahayno wixii oo dhan doonayno shaqadii 8 saacadood joogi karana dhakhtarnimada waa nacaba gabigeedaba. laakiin uu bartay lacag iyo inuu family-ki ku amba jaamacadii dhexda kaga hadha. amba waxyaabo qiimo badan oo ay ka mid tahay inuu qofku noqdo chef cuntada kariya, khaasatan wiilasha oo hodeel weyn u furi lahaa oo meel qurux badan la furi lahaa oo dhaqankeenu sii jiri lahaa in lagu caayo la yiraahdo waa dabakh. laakiin adduunka ay shaqooyinka qiimaha ka sameeyay tahay baarun waxa hoos meelaysa guushi. dhakhtarku waa guulaysta, dabakh waa waqti waa macna shaqo hoos loo arkaa, laakiin waa laba xirfadood oo isku dhigmi kara. marka la eego cuntadii caafimaadkii bay ka mid tahay, noloshii bay ka mid tahay, dhaqaalihii bay ka mid tahay. absolutely maxaad odhan lahayd waalidiinta amba bulshadeena in waxbarashada iyo shaqada iyo caafimaadka iyo guusha isku xiran yihiin? horta waxaan odhan lahaa horta laba dhinac baa jirta oo mid waxa weeye waalidiinta ingiriiska jooga. sax. waxaan odhan lahaa sidaa imikaad sheegtay baa ka jirta dhaqankii waynu la soo dhoofnay moogta. waa run. dhaqankaas waynu la soo dhoofnay inagoo keliya maaha communityga bakistaanta oo kale opticiano badan iyo dhakhtaro badan iyo dentisyo badan baad arkaysayo bakistaana. mar baa jirtay iyaguba ay dhalinyaradooda lahaayeen dentis noqo ama qolada indhaha dhakhtarka indhaha noqo ama qolada indhaha cabirta noqo ama marka waad arkaysaa halkay maaragtay community kastaaba ay ku yaaceen ama ay dee dhalinyaradoodii u direen. dhalinyaro badanoo waxaan arkay halkan ka soo baxday jaamacado oo Soomaaliya Sheffield kaliya maaha dee kulli wadamada kale waa nala mid oo dhakhtarnimo iyo neerasnimo hablihii la yiri taga eeg hadda hablihii waxa la yiri dhakhtarriya neerasyo noqdo haddii inuu ku yiraahdo neeras baan noqonaya wax loo arkaa inuu wax xun galay. taas qudheeduna waxay ka mid tahay waxyaabaha mentality-ga in la bedelay tahay. sax. haddii inankina waxaa la odhanayaa business iyo engineering iyo waxa kala samee engineeringkii haba sameeyaane inamadii wada business iyo business administration habliina neers baa lagu yaaciyay. imka magaalada Sheffield oo kale dhalinyaro badan oo jaamacad ka baxday baan isugu yeedhnay. waxaan arkay macallimiin fara badan, aad baan ugu farxay waayo macallimiintii ilaa adigu 20 dhalinyaro baa ka soo qayb galay oo 20 ka dhalinyarada ee macallimiinta inta kale waxay ahaayeen arday kale. iyaga qudhoodii baan connection loo sameeyay marka wixii ka dambeeyay iyaga baa isku wada xirmay in macallimiintii ayaa imka inoo soo badanaysa. markaas marka la arkay in macallimiintii ku soo badanayso in haddana in xirfado kale dhalinyarada la yiraahdo sameeya. habla architect baan arkay, aad baan ugu farxay, laakiin way yar yihiin. habla engineer baan arkay, way yar yihiin. Sheffield kaliya maaha UK baa sheegaya. marka horta mentality-ga waynu la soo dhoofno halkan uu ka jiraa. mentality-gan marka la eegayo Somaliland oo kale de wadan aan sida kan oo kale horumaray maaha, laakiin waxyaabo badan oo aan anigu arkay waxa kamid ah jaamacado fara badan. haddana anigu de qof wadankii jaamacad ka dhigtay miyihi, laakiin waxaan u arkaa in production badan oo jaamac arday badan lasoo saarayo, laakiin at the end of it aan loo haynin shaqooyin. waxa wanaagsan regulationku inuu ahaado kuwan waxaan u helaynaa dawladuna dhex galayso I'm sure inay ku dhex jiraan ay yiraahdaan kuwan oo kale civil service ki shaqo u helaynaa international development reconciliation waxa maaragtay hay'adaha inoo soo shaqo tagay waxaan ay ku shaqeeyaan dhalinyaradeenna in la baro way wanaagsantay, laakiin in la baro businesski ha bartaana inay practicalkiina bartaan oo mechanical engineering oo kale gawaadhida birta la waayo Japan baa laga doonayaa dhowr bilood bay maqnaanaysaa. in mechanical engineering-ka inamada iyo hablahaba la baro, hablihiina waa inaan shaqooyinka laga reebin moogta. in waxyaabaha jaamacadahan fara badan ee projectska ka dhigay educationka in horta regulation lagu sameeyo, waayo haddii thousands and thousands of haysatid arday aan shaqana u haynin maxay qabanayaan marka?
taas aniga waxyaabaha iga yara warwarisa Soomaaliya oo dhan iyo Somaliland oo dhan waxa weeye Djibouti laba mid ah malaha waxa weeyaan arday badan baynu ka soo saarnaa jaamacadaha laakiin shaqo u hayade waa arrin adag absolutely waxaa tidhi waxaynu u baahan birta wadankii looga baahday gaadhiga Japan baa loo diraa amba China dhowr bilood bay maqnaataa waynu soo saarnaa dad barta mechanical engineering amba laakiin mechanical engineering af Soomaaliga wuxuu ku noqonayaa krishbo amba kii gaadhiga hagaajinayay mar labaad dhaqankeennii ayaa hoos u dhigay qofkii waa qalad oo calooraya hebel waa inanka miskiinkii krishbooga laakiin laga yaabo wadamada qurba jooglaanayay uu yahay macnaha in mechanical engineer oo engineeringkii birta wax ka bartay oo aqoon u leh waa iyaduna ay dhibaato ah waxa weeye summer walba UK dadka degana waad fahmaysaa waxaan ka hadlay summer walba waxa guryaha soo garaaca kuwan oranaya gaadhanka ma ka jarnaa daaqadaha ma ka maydhnaa sax waa dad ajaanabiya oo wadamo kale ka yimid oo aan ahayn kan ah dadkaasi waa dad shaqaysanaya reer waliba wuxuu bixinayaa 20 gini labadii weegiba marmala aanay kaba go'in carruurtoodii u baahantay haddii ay xoogga gelin lahaayeen inay iyagu kaasoo kala sameeyaan oo iska dhex advertise gareeyaan reer walba oo Soomaaliya inama Soomaaliya ama habla Soomaaliya baa ka jari lahaa maaragta marka waxyaabo badan oo aynu ka faanaa jirna dadka faanaya wadadaan haddana aan shaqooyin gacanta ku haynin waxaan aaminsanahay iga raali noqon ka dhexgal waxaan aaminsanahay shaqo la'aanteena waxa qayb weyn ka ah dhaqankeena shaqo la'aanteena waxa qayb weyn ka ah dhaqankeena wax kasta magac qurux badan bay ku leeyihiin luqadaha kale laakiin inaga vocabulary-ga xataa inoo yar magac bixinta oo shaqooyin fara badan baynu bixinay magacyo ma garanaysaa hooseysa qofkii geershilaaha waxyaabo badan baynu qiimo daraan oo bahlayna farsamada gacantuna way naga maqan tahay ayaan aaminsanahay imika haddii imika gaari kaa jabo inanka geerashkeed u geynaysaa waxaan ku idhi meel yaroo uu waabtay buu fadhiyaa intaasoo gaariba maalintii soo marsan ninka uga xariifsan waa ninkaa meesha waabtay ee gacantiisii ku shaqaystay laakiin inta gaariga soo maraysa iyo lacagta kiliinka ee xalaasha uu samaynayo ayaa ka wanaagsan muhiimsan inuu meel istaago shaxaado waxba kama qabno in haddayna dhalinyaradii loo haynin shaqooyin dee shaxaadku ceeb maaha laakiin oo dee waxa keentay systemkan ayaa keenaya laakiin waxa wanaagsan inta caqliga lala kaashado in wixii gacanta lagu qabanayay najaarka iyo wastaadka guryo meenu heli lahayn haddii najaar iyo wastaad haysanin lama heleen kaatimaha jaraya dee dad badan baaban afro dheer rabin inay yeeshaan oo intaa waa laga soo jaraya marka waxyaabo badan oo aan u baahan inaynu attitude-ka la bedelo ayaa jira oo laga fikiro horta dee qofkaaga hadduu wax ka faanayo arrimaha shaqada iyo dhalinyarada markaan ka nimaadno maxaad kula talin lahayd kaltuunay dadka anigu aan ugu horeeya iyo inta kale badan ee ku hiigsata role modelka aad u tahay maxaad tala siin lahayd markay noqoto dhanka shaqada iyo dhanka bulshada ama guud ahaanba ama waxbarashadaba waa horta anigu markaan imkaan hadlayo inamiya hablaba anigu waan la hadlayaa sababta maaha iyo goor in inama dhalinyaradan aan caawiyo ee miitinada laygu yeedhayo meel walba laygu yeedhayo waxa weeye sababtaa inamaan u badan dadka aan aad jeclayn aan u support gareeyo magaaladaydan especially sax haddana iyadoo sidaa tahay waxa weeyaan maadaama way dhacaysaa maadaamaanu inaan ahayn inamadu iyo arkaan inaan dumarkun la hadlayo marka kulligiinba waan idinla hadlayaa ogaada waxa weeye marka hore qofku haddii intuu wax bilaabo uu ka hadho ma aha qofkaasi wuu dhacayo guusha sidaan hore u sheegay haafkeedii baad wadaa iyada guusha waad soo bilowday waad ku dhiiratay wixii aad bilowdo inaad ka gungaadho oo si kastoy kugu ahaataba inaad dad la kaashato xitaa oo aanad noqonin qof maaragtay quitter ah oo dee wixii ka hadha inaad si fiican u dhegaysato haddaad opportunity ama uu kusoo hormaro fursad qaali ahi inaanad fursaddaa sii daynin oo aad fursaddaa labada gacmoodba ku qabsato haddii aad fursaddaa heshid in aad su-aal weydiisid meel walba haddaad
jaamacad ku jirtid inaad professorkaaga weydiisid su-aalo badan oo ah taasi halkay geysa haddaan sidaa yeelo inaanad ka xishoonin inaad su-aal weydiisid dadka siyaasiyiinta ah maaragtay ama embiyadaada ah ama kaunsilaradaada ah inaanad ka xishoonin inaad tirahdo kaalaya caawi in qofkii aad role model u aragto ama aniga haddii milyan qof yimaadaan oo igu yidhahdaan role model baatay am happy inaan qof walba aan idhahdo maxaan wahagaaga kula qabtaa marka inaad qofkaad aad identify garaysay inaad u sheegtid oo tidhaahdid waxaan doonaya inaad waxa iga caawisid ama waxa aad ila qabatid dhalinyaro badan baa jirta oo maxaa dhahday xishood badan oo ka xishoonay qofkaas bilow kula yaaba bilow ku yidhaahdaa waxa qofkaasi ma yaqaano qofna kuma soo dhalanin tacliinta qof waliba wuu bartay uun qofna kuma soo dhalanin maaragtay siyaasadda aniguba siyaasadda waan bartay manaan barane siyaasadda iyadaa markii hore xukumaysay imakana anigii baa ku dhex jira qof walibana waa siyaasi marka la eego xuquuqdaada markaad u hadlaysid iyo xuquuqda dadka kaleba marka waxaan kula tala anigu role model aan leeyahay oo dad baan aniguba higsadaanaad oo shukri xaaji baandare ka mid tahay marka qof waliba qofba kolley ku mudan oo jecel inuu la sheekaysto inaad had iyo goor xiriirkaasna aad wanaajiso oo aad adigu isqiimayso maxaa dhahday qofkaasna aad higsashadaasi waa qiimeyn naftaada aad qiimeynaysid bay ka mid tahay iyada qudheeda moogtay marka waxaan kula talin lahaa horta wax kastood ku jira waa run marka la sheego wax kastood qabanaysaan in aad isa siisid credit oo tidhaahdid I did this maasha allah waan sii soconaya maasha allah hebel baan u baahanay in sheekada kala sheekaysto ama heblaayo good just don't give up hasdhiibin hasdhiibin waa arrin weyn waxaad bilowday macnaha hasdhiibin hablaha hablaheena soomaalida markay hooyo noqdaan cuslaadaan qaar ahaan inta qurbaha qaar intooda badan waxba ma yeesho oo ma celiso jaamacadday tagaan oo way sameeyaan in badan oo kamid ah qurbaha iyo dalka iyo meeshay doonaanba ha joogaan hooyanimada amba guurku break ayuu qabtaa ugu yaraanta ugu fiican waa ta intay yaraha ka tahtana hore uga kacda maxaad odhan lahay macnaha anu waxaan aaminsan qofku hooyo markuu noqdo inuu geesay noqdo ugu yaraa saasoo dareemayaan laakiin maxaad odhan lahayd macnaha ha isdhiibina amba ha kufina amba wax kasta waad qaban kartaa waxaa jira guilty aad dareemaysa ilmo yaraa waad ka tagtay waa shaqo tagtay maxaad odhan lahayd maxaad hablaha si gaara ugula talin lahayd dad wadamadan ayna joogno dadka horumariyey maxaa dhahday usoo dagaalamay inay foodaan oo laga qaybgeliyo 2000 years ago ayay 100 years ago sorry ayay ahayd markii dumarka ingiriisku u dagaalamayeen inay cod yeeshaan ay foodaan maaha in loo foodo ay foodaan waxa keentay taasina determination dumarku dhibaatooyin badan bay dadweynahan usoo mareen iyo dhulalkan ay dhisteen horumaray dumarku markay maternityga ka baxaan shaqay dib ugu noqdaan wadankan joogaa hooyooyin badanna waxaan arkay horta dhalinyara intan dambe jiilkan dambe soomaalida ah waxaan arkay hablo jaamacada ku jiro caruurtiina neersarigii geysanaya hadhowna soo qaadaya haddana jaamacaddii ku noqday masterkii samaynaya ama shaqaynaya kuwa waxaan leeyahay horta horow sii socda hablaha yaraha kaday ama yayna markii hore jaamacadii iskuulla ku jirin ama oo ay shaqo ku jireen soo istaageen caruurta idinkoo daryeelaya ama part-time shaqadii ka dhigta ama iskuulkii part-time ka dhigta laakiin haddii aad ka hadho 10 sano kadib istiraahdo ku noqo way adkaanaysaa servisyada jira ee ama neersariyadu ka mid yihiin ama maxaa dhahday jaalkeerada kale ka mid yihiin isticmaala koolajyada isticmaala neersariyadooda waa lagu dayan karaa dumarka wadankan usoo halgamay wadankan ingiriiska iyo wadamada kaleba usoo halgamay wadankoodii dee markii iyaga ku dhashay halkane u dhashay waan gartay waa talaadi aada wanaagsan waxbaa laga dayan karaa waxa weeyaan inaad adigu marka inaad halkaa kasii wadaan mooyaane dumar badan waxaa jira anigu imakaan arkay oo marka caruurtii walaala koriyeen ayay imika dib ugu noqdeen inay shaqeeyaan laakiin realityga waxay tahay shaqooyinkii skillska lahaa way ka hadheen way shaqeeyaan good maasha allah
laakiin shaqooyinkii skillska marka iyaga qudhoodii baan ayaan isa siinaynin credit oon odhanaynin qaar badan baa collegekaasaan dhigan jiro childcare baan dhigan jiro waan ka hadhay oo imakana shaqo kalaan qabtaa marka way wanaagsantahay inay halkaa kasii wadaan waan gartay Kaltuun aad baa mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadeeni su-aal baa jirtaan martidayda marka u dambeysa aan siiyo Kaltuun ahaan maxaad aniga istaahila i weydiin lahayd haddaad su-aal hayso waxaan ku weydiin lahaa istaahilay adiga qudhaadu waxay yidhahdaan dadka markay dadka ammaanayaan af soomaaligan bartay waxaa kamid a caadi ma tihid oo laga wado yar amazing saan arkay waa run adiga qudhaadu waxaa tahay hooyo waxbaad baratay waxbaad barataa waad shaqaysaa adiga qudhaadu istaahilay maxaad sidabada qudhaadu u manage garaysaa because qof kasta oo juggling ku jira waa oo haddana dhowr wax isku wadaa management buu leeyahay managementkaas bal ii sheeg aan kula qaybsade waxaan u manage gareeyaa ilaa iyo markaan yaraa Hargeysa joogay ilaa imika had iyo jeer ale waxaan jecelahay waxa aan qabanayo insha Allah wiiga soo socda amba bisha soo socota inaan sii qoro on had iyo jeer ale bugiga shandadeeda waxa ku jira diary book taana waxaan ka bartay aaba ayaa wax kasta uu rabo inuu sameeyo sanadkaas amba uu gaadho uu qoraa haddii aan inta badan wax ma gaadho waxoogaa waan stressa marka markay noqoto wax ka gaadhsiinta amba sidaan u ballangareyn waxaan isleeyahay inaad waqtigayga aan sii qorsheeyo ayaa iga caawiya midda labaad waxaan xasuustaa ilaa iyo waqtigaan caqliyeystay waxaan toosaa subax walba 4 subaxnimo amba aan shaqo tago amba aan shaqo tegin amba sabti ahaato amba axad ahaato marka kulli marka subaxa hore u kacdo waxaad haysataa ugu yaraan 5 saacadood ka hor intaanad waxbarashada amba jaamacadda amba shaqada bilaabin oo dadkii ka horeyso marka 5 saacadood amba cuntadii baan karinaysaa amba gurigii oo dhan baad nadiifinaysaa amba wixii baad karinaysaa inta badan laakiin waa waqtigan wax akhristo maadaama jaamacaddii shaqada isku dhinaawado oo waqtigaasaan shaqada guriga iyo waxbarashada ka takhalusaa waqtigan hooyo noqday kadib maasha Allah waxaan jecelahay inay aragto sawirka ugu quruxda badan ay maskaxdeeda ku dhigaya inay hooyadu kacdo socoto shaqayso wax qabato isku tiirsanaato familkeeda daryeesho ilmaheeda marka iyadaan oran kara waxa ay noqotay motivation maasha Allah iyo hooyadayo qof role model intii hawl kara aan iyadana xasuusta mar walba waxyaabahaas oo dhan la isku keenay iyo Kaltuundada ugu horeyso aniga ilaa waliba xildhibaannimay ku dartay adigu oo sameyn kartaa waxa maalin dhaweyta laygu yiri waxaan doonaynaa inaan ogaano sideebaad u sameynaysaa PhD adigoo counselor su'aalan rabaa inaan ogaado 84 counselors baanu nahay Sheffield 84 iyaga 5 of us aniga marka laygu daro ayaa jaamacad ku jira صح da kuwaasan baan kusoo biiray laakiin da waxaa ii raacsan hooyanimo iyo carruurtiyo yaryar laakiin wada full time education bay ku jiraan horta ma aha easy ma odhan kartid waa easy oo de waa challenge dheer laakiin sanadka u horeeyana waa master 3 sano u dambeeyana waa researchkii weeyaan oo youth violence waxaan sameynayaa serious youth violence addressing issues ka maaragtay knife crime ka other issues laakiin waa specific waana arrin xiiso badan arrinta dembiyada iyo midida la isku dilaya way kusoo badatay waddanka degan tahay marka researchka ku sameynaysa cilmi baarista waa arrin waqtigeeda ku beegan waa arrin loo baahan yahay weliba da Somali community-ga lala sameynayo Sheffield kulli waxyaabo badan baa ayaa nationalina ay kaga faa'iideysanayaan UK oo dhan internationalina Canada iyo Norway and other countries ay kulli kaga faa'iideysan doonaan iyo America umaleyn maayo inaan tegi doonaan Canada u badantayna criminology waad gadaal kaga noqotay mystery xaggi dambe sama horta xagga kale ka soo wareego labadiiba hadda waad ka soo baxday criminology iyo social study labadiiba ha marka horta kulli waxaan ku soo gabagabeynaya walaal way wanaagsan tahay in
la isgubaabiyo imika labadeenoo kale waxayna laba qof aada isu gubaabiyey isuna gubaabiya waa run dhalinyarada reer soomaaliya iyo somaliland iyo qof kasta oo dhageystana waxaan leeyahay ma adka haddii aad isku daydo wixii la isku dayaba waa la gaadhaa waxyaaba badan oo aynu qur-aanka iyo diinta ka qaadan karno ayaa jira waxyaaba badan oo dhaqan ah oo aynu iska tuuri karnaa jiro oo dhaqanka iyo diinta dahwi goor diinta muhiima marka haddaad eegto wixii dhaqanka ahee aan noloshaadii hore u marinaynin haddaad imika diinta ka eegto diinta waxa ku jira wax kuu sheegaya noloshaada inaad hore u marin karto ama xashiish goro noqo ama jeega xir noqo diintu shaqaysay ka odhanaysaa wax xalaala shaqayso waa run dhaqanka in la ilaaliyo waa wanaagsanta laakiin waxaa kasii muhiimsan qofku inuu diinta islaamka ku dhaqmo o raaco taasaa adduunyadana guul gaadhsiinaysa aakhirana guul gaadhsiinaysa waa run weeyaan kaltuunay aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waktigaaga iyo aqoontaada iyo warbixintaadi la wadaagtay iyo waraysigaba waxaan rasheynaya inaan waqti dhow mar labaad kugu soo dhaweeyo Somali Motivation Podcast insha allah walaala aad baad mahadsantahay adiguna waqtigaad isiisay aniga qudhayda waqti baad isiisay aan kugula sheekaysto oo aan dadkana kula hadlo mahadsanid walaalo